إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan taasi inta uga dareynaa dadkii sida xaqdarrada amaanta lagu dilay gacan ka xaqdaran ay dishay oo uu ka yahay kow ninkii odayga ahaa ganacsatada ahaa siyaasigii weynaa cali maxamed xuseen cali marguus isaga oo beertiisa jooga lagu tagay oo lagu dilay. waxaan leenahay ilaahay naxariistii janno ha geeyo. nin odaya oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku weyn buu ahaa. nin oday ahoo dadka reer koonfur galbeed ku weyn oo taariikh fiican leh oo maxay ahayd ganacsi iyo siyaasad iyo odaynimo intaba ka soo shaqeeyay oo ahaa. ilaahay naxariistii janno ha geeyo. annagana samir iyo iimaan Allah naga siiyo. bacdigiisana ilaahay nama fidmeeyo. dadkii kale oo dhalinyarada ahaa oo ayagana dilalkan soo gaareen ayagana ilaahay ha u naxariisto. samirna Allah naga siiyo. kuwa dilalkan iyo dhibaatada geystay oo sida xun u fikiraayo oo rabshadaha ku wada dadka shacabka iyo oo ka shaqeynaya waxaana shaqadooda ahayn oo ka tirsan ciidamada gaar ahaan ciidanka SMA. waxaan leenahay haddaa ummadda iyo shacabka ah kula soo noqoteen dhibka intaan ka badan cid in ku fiirsan doonto ma jirto. nin walba oo ciidamada ka tirsan waxaan rabnaa inuu xarintii uu ka tirsanaa iyo ciidanka uu ka mid ahaa uu joogo magaalada Baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed oo dhan. nin aan ka tirsanayn ciidamada qalabka sido oo hub ku wadan karo oo wax ku samayn karo ma jiro. saacadan laga bilaabo waxaan amar ku bixinaynaa in magaalada aanan cidna aynan hub ku wadan karin. ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan ciidanka loogu talagalay inay amniga sugaan oo magaalada u xil saaran bas ayaa hub ku wadan kara oo amniga sugi kara. ciidamada kale oo rabshada dadka ku sameeyay nin kastoo askari ah waxaan rabnaa in uu ku noqdo xeradii uu ka yimid. dadkii gacan ku dhigilayaalka ahaa oo dhibka geystana sida ugu dhaqsaha badan waa in lagu soo qabto. ciidamada amniga ayaan ku amraynaa inay sida waan amarna waa ku bixinay waana la soo qabanaya insha Allah. saan jecelnahay hadda howlgalkooda lagu jiraa oo waa la soo qabanaya gacanta lagu soo dhigi doonaa waa la keenayaa. dadka kalena waxaan leenahay samir Allah in siiyo oo eheladooda ay meesha ku dhinteen. dadkana waxaan faraynaa xasilooni iyo deganaan. qabiil isu dila wax micno ah ay keenaysa xigmada ma jirto. waxa la isku haayo oo dadka loo dhibaateynayo waa dhul iyo beer iyo mushkilad aan dhamaanaynin ummadda lagu imtixaamay. dhulka go'aan baa ka gaartay dawladda. dhul cid lama le ilaahay baa iskale dhulka dawladda iskale oo maamulaysa. nin walba buqcadda uu kaga nool yahay uu ku leeyahay. wixii intaas ka badan waxa waaye cid ka raadinaysa waa annaga go'aan ka soo saarnay muddaan u qabanay inaan arrimaha dhulka aan laga hadli karin cidna dhul isku qabsan karin. waxaan rabnaa marka ciidamada amniga inay istaanbay ay geliyaan ciidanka oo dhan. nin kasta oo rabshadahaas qayb ka ahna la soo qabto. cid allaali ciddii hadda wado inay qabiil u danaanisana la soo qabto la soo xiro. intii dhacday intaas lagu ekeeyo dadkii dambiilayaalka ahana maxkamad la soo saaro oo dadkaas dilay. intay rabaan ha noqdeen waxay rabaan ha aadeen waa la yaqaanaa waa la garanayaa qof qarsoon ma jiro. kulli waa in la soo qabto maxkamadda la keenaa. dadkana ay samraan oo ay sugaan intii ay dawladda waajibkeeda ay ka gudanayso oo dadkaas gacan ku dhigilayaalka ah laga soo qabanayo. waxaan ku jirnaa bil barakaysan bishii Dulxajkan ku jirnaa maalmihii ugu barakada badnaa oo in la ixtiraamo la sharfo u baahnaydaan ku jirnaa. dad islaam ahaan nahay. islaamnimada iyo karaamada bisha ay leedahay ha la ixtiraamo. ilaahay ha laga baqdo. ilaahay ha loo noqdo. dhiigga islaamka la iska ilaaliyo. dadka walaalaha oo micno la'aanta lagu dilaayo ha la iska daayo. hana la ilaaliyo karaamada iyo iimaanka iyo islaamnimada sharafta ay leedahay iyo bishan barakaysan oon ku jirno karaamadeeda ha la dhowro. waxaan codsanaynaa inaysan tilaabo dambe la qaadan labada dhinacba. cid dambe wax suubisaana ayna jirin. ciidamada amnigana ay sida ugu dhaqsaha badan tilaabo uga qaadaan ciddii geysatay falkaas. meel kastay joogaanna la soo qabto.
dadkana uu ilaahay samir siiyo la samraan jecelnahay. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun.